Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada saaxiibayaal. Taxanaheena inoo socday ee halkudhigiisu ahaa xasuusuhu waxay mudan yihiin ixtiraam, ciwaankiisuna ahaa top 5 ama shanta wanaagsan. Qaybteennii afraad ayaynu gudageli doonaa. Waxaan ka wadaa qaybtii shanaad ayaynu gudageli doonaa. Maanta 5 heesood ayaynu soo qaadan doonaa oo ah heesaha lamaanaha. Heesta koowaad waxaa la yidhahdaa Igu Fillow. Wiilkii baa bilaabay wuxuu yidhi waxay soo baxday 2020. Wuxuu yidhi fariidii aan hablaha darteed uga farxashay in badan kuma faanin ee maanta faalladaada geli. Sidii roob fiid curtoo dhulkana ku firdhiyay biyaha ayaad farxad igu habtaa. Wadnaha kugu fiiqay oo faruuryaha iyo dibnaha adaa furahooda hayee bal faataxadan marne fadhiisa macaan mar oo aniga uun igu fillow. Waxay tidhi filkiisa iyo wiilashaba halyeeygan ka fiirsadow midkii fidnadeena jecel ka qari foolkaaga abid. Fiidmeerta cirkaa martana farriimay qaadaysaay yaanay fooqaaga iman. Wadnaha kugu fiiqay oo faruuryaha iyo dibnaha adaa furahooda hayee bal faataxadan marne fadhiisa macaan mar oo aniga uun igu fillow. Wuxuu yidhi jacaylkii fiican baa mar uun libta soo fagee faraantiga hoo macaan xafladda guurkeena fuli. Si aan Faysal iyo Nimciyo u dhallo faarax iyo carruur inoo soo qaad firaash. Wadnaha kugu fiiqay oo faruuryaha iyo dibnaha adaa furahooda hayee bal faataxadan marne fadhiisa macaan mar oo aniga uun igu fillow. Waxay tihi aroos fajaco bulshadu ka yaabtaan fulinayay xabiibi Fiyoore iyo faynuuskii Horow-keen. Fanaaniintuna waxay fiidka ay qaadayaan heesa uu Axmed Furunle tumay. Wadnaha kugu fiiqay oo faruuryaha iyo dibnaha adaa furahooda hayee bal faataxadan marne fadhiisa macaan mar oo aniga uun igu fillow. Heesta ku xigta waxaa la yidhahdaa Cabsoon tii hadda ay liddi ku tahay. Waxay soo baxday 2020. Wuxuu yidhi caashiqu hadduu cilmi laaday hadduu caasiyo qays ciilay cishadanna anuu i casuumay. Waxay tidhi cabashadu walaal waa caadi cudurkii bulshada ku ciyaaray ha cabsoon hadduu cag ku saaray. Waxay tidhi wiilka casow ciladaydu ceeb maaha ee hay caayin. Wuxuu yidhi cadibaadda iyo isciqaabku iyagaa curto casharkeena. Waxay tidhi ha igu noqon cunsuri qalbicaaga curadada ku nool caalamkeenna adiga cishqiga sida cuudka casho iga dhiga ee caawi ciirsi baan rabaa bali caawi. Wuxuu yidhi cuntadiiyo haddaad ceeshka diiddo camuudiyo haddaad ciidda miisto casiis baan ilee caqligaaga intuu ceel ku riday kii carruurta kugu caymiyey cabaadin. Waxay tihi arigiyo cokani cawskiisa kama carare ee codadkayga cishqi baa wade ha curyaamin. Wuxuu yidhi cindigaygu ruux caalwaaya uma caajise sida caamo catow baad waday ha cuslaanin. Waxay tidhi ruux kula cajabay cawadiisa adigoon cidlayn uga maalin. Wuxuu yidhi qoftaada cirradu caanyeysay intaanan cadhoon caraabi. Waxay tidhi ha igu noqon cunsuri qalbicaaga curadada ku nool caalamkeenna adiga cishqiga sida cuudka casho iga dhigay ee caawa ciirsi baan rabay bali caawi. Wuxuu yidhi cuntadiiyo haddaad ceeshka diiddo camuudiyo haddaad ciidda miisto casiis baa ileen caqligaaga intuu ceel ku riday kii carruurta kugu caymiyey cabaadi. Heesta ku xigta waxaa la yidhahdaa Muruq baan u dayn. 2020 ayay soo baxday. Wuxuu yidhi wiilkii baa bilaabay wuxuu yidhi dalkeenna iyo arlada inta dumar ku nool darmaantii hablaha iga deeqday daraaddaa jacayl nafta daaliya ay duqeeyayo waan ku doonayaa. Dahabkii waxaa dunida kor yaal haddii laygu dado adaan duunyo iyo doolar kaa jeclay dabuubtayda fahan. Waxay tidhi halyeygii dabkiiyo dambaskiiyo dhibtiyo meelaha dardaran iga daafacow awgaa daran igu soo da'yo dubaaqiyo xiskuba way kugu degaan. Dabaynada kalgacal adaa igu dugo dabiibkaygii iyo dawaad ii tahay digtoorkii jidhkow ii dhay dakharadan. Wuxuu yidhi waxaa jira dugaag dibindaabyadiyo jecelka dirko dulmiguun ku nool ciidaab xun iyo dubo qaado oo kaan danteena rabin dooxoo juge. Daar iyo guryihii dugsiyo makaan haddaan deeq u helo adaan duunyo iyo doolar kaa jeclay dabuubtayda fahan. Waxay tidhi qof digtoon ileen lama dili karee muruq baan u dayn kii daano raba.
Anna dabar xamilay oo dadaalayay dacalkaaga yaan nacabdu ka heli. Diiftiyo dhibtiyo durayga iyo jirrada adaa didiya oo dawaadii tahay digtoorkii jidhkow iyo dhaydakhradani. Heesta afraad waxaa la yidhahdaa kuu furan xabadkaygu. 2020 ay soo baxdayna. Heesahan dhan 2020 ay soo wada bixeen waagii dhalinyaronimada. Gabadhii waa bilowday waxay tiri haddaan wiilow xinaysto raggana aan kaa xigtaysto meherna aan kugu xalaashto miyaad xiisaha faquuqi. Wuxuu yidhi haddaad xaaskayga noqotid haddaad xurmo igula joogtid xabiibi canaan badaaye wanaag baan ku xambaaray. Waxay tii hayee wadnahayga xiiqsan xanuunkuna u asiibay dhayo daawi xayaati. Wuxuu yidhi xumadda aad sheeganayso haddaan dhakhtar kugu xareeyo xoogaa maanay degaynin. Waxay tii may dhakhtar xooga qaata ma doonayo ee xabiibi adaa xidig yahow naftaydan jacayl xuurtada yaqaana ku xeere hayshidaynin. Wuxuu yidhi haddaan xarfahaad qoraysid xaqiiqdii aan rumaysta xabaasha aanoon dhex seexan xumihii arki maysid daale kuu furan xabadkaygu baby. Waxay tidhi haddaan wiilow xagaaga xeebtii aan aadno saaxiil mudana aan soo dalxiisno ka waran xilliga agtiisa. Wuxuu yidhi xiskaagu wuxuu qorshaysto inaan diidan xanaaqo xaaraan weeye midaasi jacaylka xaggiisa huna. Waxay tidhi hayee xoorkii dhibaaye xiqdina kula raadinaye hantaada ka dhowro baby. Wuxuu yidhi xishood ruuxaan karayn hadduu caashaqa xaseeyo xagtimo dhaadheerkaygu. Macnaha waa dilayaa barbaarta dheega xiirta midkaan ka xushow dhagayso adaa xidig yahow naftaydan jacayl xuurtada yaqaana ku xeeraye hayshidaynin. Wuxuu yidhi xaajadu quruxay hagaagtay xubbina waynaga dhabaynay xabaasha anuun dhex seexan xumihii arki maysid hawle kuu furan xabadkaygu baby. Heesta ugu dambaysa waxaa la yidhahdaa ila muudso caashaqa. 2020 ay soo baxdayna. Jacaylkii muftaaxilo meel loogu qariyaa macabeeraya abid ma helaan taagaro. Dareenkii mug weyn baa miisaan la geeyay aynu keena marinne midigtiisa soo qabo. Marway qalmayso aan maalka uga tago oo aan suugayn maamulkuna xumaynayn caruurtana maryaha iyo u dhaqayso madaxoo aan jaarka maagin aduma baacan jira. Waxay tii aad ruux mitida oo aan cay mudnayn oo uruqiisa khaaska anfac noogu keeno masjidkana u luudo mawlihiisa caabuda oo maanka qoyskana mulkiyaadka galo. Wuxuu yidhi dhamankaaga malabka miidana sideedii u macaan markii aan macsiyan bogsooda. Waxay tii laabtaada umal markii aan galaan farax sida mayga oo kale igu maahiya dhibic. Wuxuu yidhi waxay tii mugdi weynu dhaafnay hama tagin kalgacalkii aynu gaadhno meelo midhihii jacaylkii macaankiisa guranne ila muudso caashaqa. Halkaas ayuu maanta inoo ku dhan yahay saaxiibayaal. Waxaan idinka raaligelinayaa khaladaadka badan aan galgalayo maxay tahay heesahan oo dhan waa hore ay ugu dambeysay akhriskooda xitaa. Marka waa horaan sameeyay haddeer xasuusaan baan u soo qaatay maahane. Halkaas maanta intaas ayaan ku dhantahay. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.